wasiirka gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caate ayaa ka hadlay ciidamada ka goostay Somaliland iyo madax uu ka mid yahay bari saabkii magaalada Baran oo u galay maamulka Puntland. waxaana wasiirku sheegay in ay maxkamad la tiigsan doonaan ciidamada ka goostay, balse waxa bulshadu isweydiinaysaa su'aalo ay ka mid yihiin maxay xukuumaddu uga hortagi weyday ciidamada oo noqonaya kuwii abid ugu badnaa ee ka goostay Somaliland. maxay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland uga hadli waayeen dhacdadan oo bulshada Soomaaliyeed meel walbay joogto aad u hadal hayso. dhanka kale, siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiin aanu la xidhiidhnay oo ay ka gaabsaday in magacooda aanu faafino ayaa hadalka wasiirka ku tilmaamay nin daadqaaday xunbo cuskay, waxaanay raaciyeen in ay aad u qawadsan yihiin ama ula yaaban yihiin hadalka wasiirka gaashaandhigga ka soo yeedhay oo ahaa waanu maxkamadeyn doonaa ciidamada goostay, taas oo ay ku tilmaameen wax xukuumaddu doonayso in ay fuliso mustaqbalka, balse waxa aan caddeyn talada ama tallaabada ay xukuumaddu ka damacsan tahay in ay ku xaliso xilligan hadda xiisadda taagan ee gobolka Sanaag oo meelo badan ka cakiran. aamusnaanta madaxtooyada Somaliland oo walaac iyo shaki ku abuurtay bulshada ayaa la isweydiinayaa goorta ay ka hadli doonto waxa hadda jooga sida ay ka damacsan yihiin madaxda ugu sarsaraysa. eedda aamusnaanta dhacdadan ayaan ku koobnayn xukuumadda, waxaana qayb weyn ka ah xisbiyada mucaaradka ee u cuudiya waddani, iyagoo aan wax talo ah ama tusaale ah aan ku soo biirin golaha talada. waxaana cad in xiisadan hadda taagan ay ku noqotay afkiibaa juuqda gebi ahaantoodba. alool.com Hargeysa.